السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقيارته سودو بعد إذا الهانتين بقى برنامج كينا مانتا أيها برنامج كوسابسن أرين تراكن إندستري مهم لكن دتك الصوماليات اسم فهنسنين برنامج كاس أيها وحالي هذا data queues data queue إنه على جال أري كوع عصب والنقطة أما مقال كيس وكوع عصبون هذا لكن مركي أن كوش الرعو ayaa ad fahmi doontaa ama data query data queueska waxa ay ka caawinaysaa in hadii tigid si qalad ah lagu soo siiyo ama officer ha ku soo siiyo ama DOT caadi ha ku qabato oo way station laga soo siiyo and you can query that ticket wixii cadayna oo aad haysid oo cadaynaya in tigidkan qalad lagu soo siiyay oo evidence ah ayaa isu keenaysaa you gather your evidence kadibna waxa u geysanaysaa ama aad sameynaysaa wax la yiraahdo data queue ama RDRQ so data queue hadii aan hore u maqal waa program FMCSA da ay raan garayso oo loogu talagalay in aan qofna lagu xadgudbin hadii accident qaldan lagu galiyo you can query it waa query ku sameyn kartaa hadii ticket si qaldan lagu siiyo waa query gareyn kartaa hadii logbook violation lagu siiyo sanadiis waa query gareyn kartaa so querygan ma aha wax ay sameyn karto kaliya company-ga waxa also sameyn karo darawalka hadii ay tahay markii ugu horeysay ee aad nala kulantid fadlan channelka subscribe saar hadii hore aad noola joogtay welcome again thank you ama santahay and don't forget to like saartid share the video too haddaba programkan hadii aan u guura galo waa kana create an account data queues sida halkan ka muuqata FMCSA Federal Motor Carrier Safety Administration waa qolyaha xukuma ee kambariyada oo dhan oo raangareeya oo magacaaba ah ka soo deysanayso ku shaqaysanayso data queues waa aragtaan halkan marka joogto before we create an account to get started I'm a login and an oran and what type of user are you what type of user are you user nooca ayaa tahay ma waxa tahay motor carrier company motor carrier ah oo magaciisa ku carara ma tahay so hadii aad tahay company magaciisa ku cararaya you must initially access data queues through your FMCSA portal account if you have not before haddaad rabto data queue company-gaaga inaad ogaatid wixii tigida ugu jiro in qalad wax lagu siiyey in kale waxaa ka gelaysaa portal account-kaaga all companies waxay leeyihiin portal account wax la yiraahdo oo ay ka soo galaan like username iyo password ayaa leedahay halkaas ay ka soo gelaysaa laakiin darawalka haddii lagu xadgudbo isaga ma bixin karaa ma samayn karaa data queue yes jawaabtu waa yes waa samayn kartaa as a driver you can create an account waa aragtaa ninkaas warkiisa register for a data queue account uu ku dhahayaa as a driver ahaan waa samaysan kartaa data queue account marka wixii tigid oo lagu siiyo let's say adiga company ma lihid owner operator na ma tihid just waxaa wadataa laysankaaga kaliya haddaa wadatid data queue waa samayn kartaa you can request waxa loo yaqaano request data and query review waxa la yiraahdo RDQR soo saarnaa waa samayn kartaa hadii aad tahay FMCSA ama state partner waxay dhahaan dadka mas'uulka ka ah ama state patrolka oo kale ama way stationka kuwa haysta you must initially access data queues through your FMCSA portal account iyo nafta in account-ka ka soo galaan portalka ay u leeyihiin access-ka waxa kale oo samaysan kara public ba samaysan kara ama industry-ga tracking-ka ah ayaa samaysan karo login data queues account ay samaysan karaan iyagana so company-gaaga in load lagu siiyo in la jeegareeyo in hadii shil uu dhaco oo kale ay lawyerada waxay sameynayaan publican ay ka sign gareynayaan they will query your company query ku sameynayaan query waa iska su'aal waa weydiin so query markay ku sameeyaan waxay helayaan information ka ku saabsan
systemka waxa kugu jira adiga as a company ahaan. So data queue step by step haddii aan u fiirino waa kana. Number 1, register or log in. Haddii aad horey u haysatay login aad samayn kartaa, haddii kale waa register garayn kartaa. Okay, number 2, submit. Waxaad samaynaysaa of follow up on a request for data review RDR. Wakaas data review RDR ayaa la dhahaa. After you have submitted your RDR, markaa soo dirsato, the system sends to the appropriate office for review. Let's say ticketkan waxaa kusoo siiyey Colorado Way Station ku yaalo. Adiga you don't agree with the ticketka lagu siiyey inuu qalad yahay ay aaminsan tahay. So ticketkaas waa ka doodaysaa through this program ama website ayaa waxaad gelaysaa, waxaa samaynaysaa wax loo yaqaano an RDR ama data review ayaa samaynaysaa. Markii aad samaysid waxay usoo dirayaan with all the necessary information, waxay usoo dirayaan ama evidencegaaga caddayntaadii inuu kaa qaldanaa officerkan sheegaysay wixii oo dhan ayaa isku soo loo qaadaya, waxaa loo dirayaa officekii ticketka ku siiyey. So you can add more information or documents at any time. Anytime ayaa wax ku dari kartaa si aad uga dagaalantid ticketkaas inuu systemka kuu galo. Waxaa dhacaysa marka FMCSA goal for RDRs, goalka ay kala yihiin ama ujeedada ay kala yihiin to be opened and investigated within 10 days after they are received. Every ticket oo laga doodo waxaa loo soo diraa within 10 days ay review ku sameeyaan. So check your email periodically. Check gareeya lagu dhahay emailka for FMCSA decision to keep correct or remove the information in the system. Wixii go-aanoo laga gaaray haddii systemka laga saarayo ticketkaas iyo haddii ay keep garaynayaan oo ay leeyihiin officerka wuu kaa saxsanaa, iyo haddii ay samaynayaan waxa la yidhaahdo in la saxo, intaba email ayay kuu soo dirayaan. So review updated information. Website-ka FMCSA da wixii kugu jiray haddii ay keep gareeyeen waa kugu jiraysaa, haddii ay review kale u diraan under review bay noqonaysaa, haddii lagaa saarayna waa lagaa saaray. So websites updated at various times, marar badan ayaa la update gareeyaa, and therefore affect when you see changes based on your RDR. Warqadii aad ku dacwootay markii la fiiriyo ayaa ay sheegaysaa waxa dhacayo website-ka update noqonayo. That way you can see wixii la sameeyey. So FMCSA's portal and Saver websites are updated daily, while SMS and PSPs are updated monthly. And website-ka Saver website-ka la isticmaalo oo aan company kasto ka aragno, like this one waaye. Let me show you guys. Saver FMCSA markaan iraahdo, every company ku jiro waa website-kan. So DOT ayaa ku raadinaysaa, ku galaysaa. Marka waxaa aan gelinayaa DOT numberkayga markaan saver.web galo ama company snapshot-ka. Waxay ka hadlayaan oo ay lahaayeen daily ayaan u update garaynaa, waa website-kan. Markaan geliyo DOT numberkayga aan search iraahdo, carrier-kayga kuu soo baxayo. Actually every carrier in the US ama Canada iyo Mexico wuu ku jirayaa, halkaan wuu ku jirayaa. So carrier number markaa geliso waxaa kuu soo baxayo entity-ga iyo waxa uu yahay iyo company-ga inuu authorized yahay, interstate inuu yahay, whatever uu alaab u qaado. Waxaa markaa muhiim ah oo la update garayaa daily inspections haday jiraan. Waxaa kale oo la update garayaa crash haduu jiro, shil. So ticket haddii lagu siiyey ama company-ga ticket la siiyey ama out of service laga dhigay oo company-ga la fariisiyey, la curyaamiyey, waxa dhan safety ratingkiisa waxa dhan halkan ka helaysaa. Way update garayaan, markii ay update garayaanna halkan ayaa ka helaysaa. Waxa ay ka hadlayaan oo ay leeyihiin RDRs-ka reflect on company-gaaga waa halkan. Company snapshot-ka ka fiirin kartaa immediately darabta inaad ogaato, laakiin PSP-ga iyo reports-ka kale monthly ayay u update garayaan ama bishiiba hal mar ayay update ku sameeyaan. I know in dad fara badan aysan fahansanayn waxa la yiraahdo data queues oo opportunity-gan ay ka warqabin, laakiin waxaan idin
rajeynaya insha allahu tacaala in programkan mar kalena aan soo celiyo insha allah si aad u wada fahantaan oo aad xuquuqdaada ugu diriri kartid as a driver ama as a company owner operator ama qof companigiisa isaga ku carara oo iska leh DOT diisa isaga wata. intaas ayaan rabaa inaan maanta idinka dabageeyo ama aan kusoo koobo barnaamijkeena. haddii aad wax su-aal qabtid comment sectionka waa igu soo weydiin kartaa, laakiin waxaan isku dayaynaa no matter how hard ay tahay ama ay hard ma aha laakiin ay u sound garaynayso in aan ka daba tagno waxyaabo fara badan oo aan maaragtay laysanadeenna iyo kambaniyadeenna annaga aan ilaashano. waan idin salaamayaa. wasalaamu calaykum waraxmat